degmada baargaal ee gobolka gardafuuna waxaa ka socda deegaanada u dhow degmadaasi wadooyinkii roobku jaray oo dib loo habaynayo. xogayaha dowladda hoose ee degmada baargaal Siciid Cawil Dhuux oo wareysi siiyay radio Daljir ayaa ka warbixiyay shaqooyinka socda ee ka socda baargaal iyo hareeraheeda, waxaana uu sheegay in halkaasi ay gaareen samafale Maxamed Yuusuf Tigey oo ku howlan dhisidda jidadkaasi. aad iyo aad waan dhowahay marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto. waxaan kaloo salaamayaa ummadda gaar ahaan reer Puntland. waxaan salaamayaa radio Daljir. sidaa sheegtay shaqooyin badan baa ka socda degmada baargaal. waxaa la dhisay maamul cusub oo hogaaminaya gudoomiyaha cusub ee degmada baargaal Cabdiraxmaan Cayna Muuse Xaaji. siyaasadda iyo isbeddelkan isaga ayaa nagu hogaaminaya. waan u mahadcelinayaa. waxaa socota shaqooyinka hadda ka socda degmada oo aanu balownay maamulku in yar buu dhisan yahay. waxaanu balownay shaqooyinka ugu horreeya aan ka qayb qaadayna waxay ahayd toosita wadooyinka, nadaafadda magaalada, ilaa waxa weeye inta cashuuraadka degmada, iyo inaanu isdhexgal ku samaynay bulshadii oo aan u samaynay wacyigelin fara badan iyo iska xisaasho. marka shaqooyin fara badan baa ka socda degmada baargaal, waana sii wadi doonaa insha Allah biidhnillaahi kariim. waxaa jirta baahiyo badan oo magaalada waxa weeye naga dhiman oo aan doonayna insha Allah biidhnillaahi kariim inaan dowladda iyada Puntland aan waxa weeye ka helno doorkaan ku lahayn. iska tashiiro badanna waan samaynay oo dadka reer baargaal dhexdooda ah tuulooyinka iyo xarunta magarad. hadda shaqooyinka u dambeeyay ah ku hawladeynayeen waxaa ka mid ahaa dayactirka oo waxaa idinla jooga baargaal qalab ka yimid gobolka Mudug oo samafale Maxamed Tigey uu hogaaminayo. arrinkaasi hadda xagee idin maraya? sax way sidaa sheegtay. waxaana la jooga samafalayaasha gobolka Mudug oo u soo gurmaday gobolka Gardafuul. waxayna ku wajahnaayeen wadada Lafagoray iyo Gumaayo oo hoos ka degmada baargaal iyo wadooyin kale oo fara badan. hadda shaqada waxaa ka socotaa xarunta degmada baargaal iyo wadooyinkeeda hoos yimaada. wayna socotaa shaqada meel fiican bay maraysaa. waxa weeye reer baargaal oo maamulka hogaaminayana waxay ka qaateen qabil libaax. hadda maanta shaqada waxay ka socotaa toga la yidhaahdo hadir dheere oo laga soo guro degmada baargaal. togag badan baa jira oo roobku gooyeen sida Duclaati, hadir dheere iyo Dawacaley iyo meelo kaloo fara badan. waxaanu ujeedkaygu yahay ama boolisigaan wadno aan goboladaasi anagu aan hadda isku afgaranay tahay ugu yaraan wixii aanu ka qaban karro inaan iska xirro wadooyin fara badan oo ka go'ay tuulada taageer ilaa iyo baargaal inta iska xirta insha Allah biidhnillaahi kariim. kadibna insha Allah biidhnillaahi kariim wixii noo soo baxaa iyo meeshii kaleeto magaalada waxa weeyaan wajihi karro ayaan wajahaynaa. hawsha marka waa socotaa walaalle. waayo xogaye shaqada hadda socota mid ku filan tihiin baa mise waa mid idinka daraf dheer? hawsha shaqada horta waxa weeye qolada noo soo gurmatay iyo anaguba haddii aan codii isu geenay wixii tabartii anagu aan wadnaa. laakiin shaqada kuma aana filin waxa weeye wax badan baa dhulku waxay u baahan yihiin shaqo. hadda magaalada shaqada anagu aan wadno waa shaqo magaalada waxa weeye hadhow ama roob yimaado ama wax kala dhacaanin isla markiiba u baahanaysa baahi lamid ah. marka shaqadu waxa weeye shaqa naga tafdheer weeye. laakiin insha Allah biidhnillaahi kariim waxaan anagu go'aansanay oo aan waxa weeye si niyad aan u wadnaa annagoo isku duuban maamulka degmada baargaal, shacabka baargaal, samafalayaasha gobolka Mudug nooga yimi inaanu balowno wixii dhibana insha Allah biidhnillaahi kariim. waxaan jecel lahay cid kasta oo waxa weeye wanaagga jecel ugu horeysa dowladda Puntland iyo cid kasta oo ka qayb qaadan karta inay nagala qayb qaadato magarad. baargaal waa magaalo meel istiraatiiji ku taal badda Hindiya dhacda dabcan muhiim ah. kala shaqadeeda markaad fiirisid xaalkeeda guud waa see? shaqadu waxaa jira waxyaalo badan oo dibdhacyo badan baa iska jiraaniin. laakiin maamulka cusub hadeer hogaaminayo Cabdiraxmaan Cayna wax badan baan doonaynaa insha Allah biidhnillaahi kariim inaanu ka bedelo. haddana way iska bedeleen. waxaanu balownay nadaafadii, waxaanu balownay cashuuraadkii, waxaanu balownay magaaladii inaan ka dhigno xaafado. aan u samaynay guddiyo waxa weeye xarunta dhexdeeda ah. waxaan kala samaynay guddiyo heer tuulo ah. waxaanu samaynay guddiga horumarinta degmada oo aan ugu talagalnay in dowladda iyo dadka reer baargaal iyo cid kasta wanaagga jecel aan u furro boog iyo gurubyo aan lacag ugu ururayno oo aan u qarabayno. waxaa jira oo hadda aan rabnaa inaan ku xijino waddada oo naga dayacan saldhigga degmada baargaal. waana wax la wada og yahay. marka
sidaas darteed bog baan u furay waxaan rajaynaynaa insha Allah bidnaan karim inaan boga ugu qorano oo cid kasta ay nagala qaadato dhismaha saldhigana insha Allah bidnaan karim waa balaamanaya mar dhow hadda waxaa socota toosinta wadooyinka sida sheegtaba iyo nadaafadda magaalada insha Allah mar dhow la wadaagi doono waxa weeye warbaahinta insha Allah maqrad degmada Baargaal iyo wada shaqaynteeda dhinaca gobolka dhinaca deegaanada kale ee dhow dabcan filayaa waxa jira khilaaf hadda qalabkan ku sugan Baargaal waxaan nimayahay inuu gaaro wadada Gunayo iyo lafa garayo wada shaqayntiina gobolka dhinaciisa kale waa jira khilaafyo laakiin Gunayo waa Baargaal bay hoos tabantahay wadooyinka hadda ka shaqeynaya ka mid tahay laakiin did meesha lafa garay waa sax way ahayd ujeedka koowaad wadada ugu weyn oo ka tirsan weeye gobolka Gaardafuu khilaafkaas insha Allah bidnaan karim waxaan rajaynaynaa in la xaliyo oo culimada iyo fariyaasha hadda gobolka mudug ka yihiin iyo cid kasta waxa weeye ka qayb qaadanaysa inay ka qayb qaadato waan jecelahay insha Allah bidnaan karim anaguna waxaan diyaar insha Allah bidnaan karim intay ku sugan yihiin gobolka in hawsha la dhameeyo waxaan rabaa inaan baaqiyo u jeediyo dowladda Puntland iyo shacab weynaha reer Puntland anagu waxaan ka soo deegaanada fogfog oo loo yaqaan Gaarwaaga halkan waxaan ugu yimid wasiirka arrimaha gudaha Masar Dhamalcad oo markuu dhisay golaha deegaanka degmada Baargaal cusub golaha waa la dhisay waxay u baahan yihiin tababar waxay u baahan yihiin gargaar waxay u baahan yihiin in magaasa waxa weeye qofka shaqadii in macnaha waxa weeye waa la dhisay dib loo fiirin maaha waxaan marka baaqa u jeedinayaa wasaaradda arrimaha gudaha ay ugu horeyso madaxweynaha Puntland iyo wasaaradda in nala shaqeeyo oo dowladda Puntland ay nala shaqeyso oo hawlaha aan wadno iyo macnaha waxa weeye dadaalkan ku jiro in nagala qayb qaadato xaq waan ugu leenahay dowladda iyada inay macnaha waxa weeye shaqo kasta oo waxa weeye aan xaq ugu leenahay inay soo gaarsiiso wax badan aan ka ballanay wasiirka waa jiraan insha Allah bidnaan karim sidaan ognahay anagu gudbiyo wana gaarsiiyo waxna waxa weeye talooyin badan buu soo celiyay waan mahadcelinaynaa waxaan ka warramnaa insha Allah bidnaan karim oo hadda noogu weyn inay tahay tababarkii golaha deegaanka iyo maamul wanaag in la soo gaarsiiyo insha Allah bidnaan karim taana fursad la ka faa'iideysanaya